السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان asxaabteena qaaliga ah soo dhawaada waa mar kale iyo Excel tip. Maanta waxaan qaadanaynaa sida loo sameeyo receipt ama invoice. Qof kamida asxaabteena nagu xiran ayaa soo codsaday. Dabcan waa iska soo fududeyna kaliya wax ku soo koobnay customer registration iyo wax ku soo koobnay maxaa la yiraahdaa invoice-ka oo kaliyata. Xaggan qofkan wuxuu qaatay oo dhan xaggan ku xisaabsan doontaa. Dabcan intana ujeedaan saliskan totalka ah iyo intan isku wada xiran yihiin oo si automatic ah iga xogtooda buuxsan doona. Qofka wax diiwaan gelinayo wuxuu awood u leeyahay kila description-ka, quantity-ga iyo price-ka inuu qoro. Sidoo kale serial number-ka automatic waaye, automated waa asaas qoraayo. Sidoo kale customer name-kan wuxuu ka soo akhrin doonaa sheet-kan halkan yaala ee customers. Tusaale ahaan hadda customer ID haddii aan geliyo oo 104 oo kale haddii aan geliyo waa arkaysaa Canab Xasan Axmed gabar la yiraahdo lambarkeeda nooc uu yahay u shaqeynayna. Invoice number-ka dabcan automatic ku fiican tahay laakiin qofka marka waxa laga yaabaa qofka marka isticmaalayo inuu fahmo waysa darteed isaga dhaafna automatic waa laga dhigi karaa waa lagu xili karaa automatic inuu isaga uu qorto marka isagoo meel kale xog aan ka soo akhrisanay. waayahay halkan date-kana mar walba today waaye adi laakiin mar haddii selkan aysan waxba ku jirin waa isqarinaysaa ayadana sida arkayso. Xaggan customer name-ka xitaa waa isqarinaysaa haddii customer ID uusan waxba ku jirin customer name-ka iyo customer number-ka waa ay qarsan yihiin oo yacni lacala haddii aad wax soo geliso meeshaasaa lagu isticmaali doonaa ayuu ku oranayaa. had tusaale ahaan waxaan geliyey customer kale 8 oo kale qofka wata waa arkaysaan Suldaan Xaajiye la yiraahdaa lambarkaas uu wataa. xogtan meeshan payment info waa fahmi kartaa qofkan lacagihii lagu yeeshay halkii uu kusoo diri lahaa weeyaan. Account number-ka uu kusoo diraayo noocaas waaye, account name magac uu soo bixi doono kaas waaye. dabcan qofkaas hadhow bedelan doono marka loo diro. account info wana emergency waaye. idan meeshan Salaam Bank uu ka dhigan karaa Premier wuxuu rabo ka dhigan karaa magaca account uu soo baxaayo. xaggan info-ga ma Salaam Bank ama noocaas baa waxaas meesha ku qoran waaye. xaggan lambaradan meesha qofka lagala soo xiriiri lahaa waaye. xaggan signature waa fahmi kartaa marka warqadan daabacda kadib baa saxiixay dabcan. waayahay hadda waxaan rabnaa Suldaan Xaaji inaan u diiwaan gelino waxyaabo maxaa la yiraahdaa uu qaatay. tusaale ahaan hadda haddii aan tusaale ahaan usoo qabsado kasoo qaad maanta tag inay iibiso buugaagta oo kale. buug ayuu qaatay oo form 4 ah book form 4 ah oo haddana tarbiya ah ayuu qaatay qofkan oo kale. markuu qaatay xaggan waa arkaysaa serial number-ka automatic isku soo qoraysaa. dabcan waxba ka bedeli kartaa haddaad isku daydid uu ka xiran yahay sida caadiga ah. quantity-ga uu qaatay waxaan dhigi karnaa iskuulkaas wuxuu haystaa 24 arday oo form 4 ah. price-ka loogu dhufanayona waa $3. xaggan waa arkaysaa $72 ay noqotay. intana way kasoo muuqatay. subtotalkan waxaa loo sameeyey marka intaan la isku soo dardaro wixii kasoo baxa waaye. totalkan guudna discount lacala haddii loo sameeyo qofkan. haddii aan u diiwaan geliyo book kale haddana wuxuu qaatay book sidoo kale oo form 4 ayuu qaatay laakiin waa geography waaye. markan geography waaye wuxuu ka qaatay sidoo kale 24 xabo maadaama ardayda 24 ay ahaayeen. waxaa loogu dhuftay 2.5 ayaa loogu dhuftay markaan. idan waa arkaysaa $60 isku geyn waxay noqotay $132. hadda haddii aan 132daas wax ka reebo qofkan $2 oo kale ka reebay waa arkaysaa 130 total laga rabaa qofkaasi. dabcan wax saa u sii weyn ma ahan qof kasta uu samayn karaa. xogtan inta ugu muhiimsan hadda waa maxay waa customer ID-ga iyo xogtiisa mar walba ay xaggan kugu seefan. mar walba inaad seef leedahay magacaaga sheegtaa dhigi lahayd hal mar xogta ka reebo. hadda aan intaana waa qoray oo sample ah qofka isaga iska tiri doona. waa fududahay hadda haddii aan xog kale ku daris iraahdo formkaas ay kabsiinaysa formkaas loogu soo darana insha Allah video waan kasoo samayn doonaa. iyo ayaan dhahaynaa tusaale ahaan hadda waxaan ku daraynaa Maxamed Cumar qof la yiraahdo ku daraynaa tusaale ahaan. phone number-kiisuna uu yahay 88 waxaan iska geli address-kiisuna uu yahay wow. iminka haddii aan new jugsiyo ama enter iraahdo labadu waa isku mid ah. xaggan oo kasoo muuqan doonaa sida ay muuqata. waa kan Maxamed Cumar wuxuu qaatay customer ID oo ah 1011 numberkiisu waa nooca waa kaas.